Cali Maxamed Caraale gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan oo aan weli xilka wareejin oo kulan wareed warbaahinta madaxa bannaan ugu qabtay aqalka maamulka gobolka Hiiraan gelinkii dambe ee maanta ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Kheyre iyo xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay gobolka Hiiraan inay si degdeg ah u soo farageliyaan khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii madaxweynaha Hirshabelle maalmo ka hor uu ku sameeyay gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale. Gudoomiye Caraale ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in loo baahan yahay in dastuurka iyo xeer hoosaadka Hirshabelle la turjumo waxaana waxaad loogu xumaado ku tilmaamay in madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare muddo 3 sano gudahood ah in 8 gudoomiye gobol oo u magacaabo gobolka Hiiraan mar kale ayuu ku celiyay Mr. Caraale inuu yahay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee sharciga ah sida uu warka u dhigay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda halkan joogta galabta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka reer Hirshabelle iyo dadka reer Hiiraan wada salaamayaa salaanka bacdi waxaan jeclahay maanta inaan halkan aan ku muujiyo dareenkayga siyaasadeed ee ku aadan khilaafka dastuuri ee ka jira gobolka Hiiraan maamulkiisa waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan weli arintaasan xal laga gaarin isla markaana uu ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u baahan in la soo dhaxgalo oo u baahan in dastuurka la turjumo xeer hoosaadka iyo sharcigii ugu dambeeyay ee la baasgareeyay ee ku aadanaa maxaan ku raahdaa wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle iyo dawladaha hoose ee ku aadanaa gobolada ee la ansixiyay 6 bilood ka hor isna sheegay marka uu madaxweynuhu magacaabayo gudoomiyaasha gobolada inuu soo marsiyo golaha wasiirada oo ka ansixiyo kadibna uu ku dhawaaqo gudoomiyaas qodobkaasi waa jaban yahay iyo qodobkii kale ee ahaa bisha Maarch wixii ka dambeeyay xilliga lagu jiro marka la soo gaaro xilliga doorashooyinka maxaan ku raahdaa dawladda ama maamulka Hirshabelle ama dawladda Soomaaliya bilaha ugu dambeeya ee doorashooyinka la aadayo inaan waxna la magacaabi karin waxna aan xil laga qaadi karin oo madaxda halkaas joogtaa ay kulli wada yihiin ku meel gaar si kan muxaafadka ah ee dawladda markaas haysta iyo kan mucaaradka ah ee ugu sinaadaan cadaaladda iyo axsaabta mucaaradka ah iyo maxaan ku raahdaa xisbi xaakimka markaas meesha haysta si loo wada sinaado ee wixii u noqdaan cadaalad anagoo ka duulaya arintaas waxaan weli aaminsanahay inaan ahay gudoomiyaha sharciga ah ee gobolka Hiiraan sida darteed anagoo ka duulaya hab dhaqameedkii la soo maray sanadkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle uu ku soo magacaabay ilaa iyo muddo sanad iyo bar la eg 7 gudoomiye gobol oo macnaheedu uu yahay inaan gudoomiye helay bilooyin ka badan inaanu jirin halkaasina ay ka caddahay mas'uuliyad darro iyo inaan lagu aamini karin hoggaanka dowlad goboleedka Hirshabelle sida darteed waxaan baaq u soo jeedinaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxaan ku raahdaa prime ministerka xildhibaanada ka soo jeeda Hirshabelle gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo maxaan ku raahdaa xildhibaanada Hirshabelle iyo madaxda kale Hirshabelle madaxweynaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka inay farageliyaan oo ay u soo jeestaan sidii loo xal lahaa khilaafkaas waxa kale oo ugu baaqaa dowladda Soomaaliya inay faragelin toos ah bacdama aan isxal weynay capacity aan u lahayn inaan ku xalino khilaafkeena bacdama mas'uuliyaddeena ugu horeysay ay marayso sanadii bar iyo 7 gobernatore waad arkaysaan inaynan awood u lahayn capacity wax ku xalino inaan dulqaad jirin
inaanu jirin maxaan ku raahdaa fikir maxaan ku raahdaa arrimahaas xalli kara sidaa darteed waxaan mar labaad ugu baaqaa dowladda Soomaaliya inay soo fargeliso khilaafka ka jira gobolka Hiiraan gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha anoo ka duulaya arrinkaas maanta waxay ka bilowdaa waxaan diyaar u ahay inaan kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya si ku meel gaar ah sidii loo gaarsiin lahaa dhismaha Hirshabeelle dowlad cusub. Master Caraale ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan kulamo uu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka gobolka si khilaafka jira looga gudbo balse waxa uu sheegay in dadka gobolka ay u cuntami waysay habdhaqanka uu sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle in uu ku maamulayo maamulka gobolka Hiiraan. Ilaa hadda waa jiraan wada hadallo fara badan oo dad waxgarad ah runtii dadkiina way qanci waayeen waxyaabaha ka jira waxay ka qaadeen maskax xanuun habdhaqameedka maamulka sare Hirshabeelle aad iyo aad ay ugu xun yihiin marka cid ku qanacsan ma jirto dhaqanka noocaas marka cid kasta waxay diyaar u tahay raali ka tahay habdhaqameedka maamulka sare Hirshabeelle in wax laga bedelo maxaa yeelay waad ogtiin khilaafkii ugu dambeeyay dad baa ku dhintay muddo fara badan ayaa waqti nooga lumay ballantii la wada galana waxay ahayd odayaasha dhaqanka maamulka aniga iyo madaxweynuhu wuxuu ahaa inaan inta laga gaarayo muddada ka dhiman Hirshabeelle wax dambo isbedel inaan la sameyn ballantaas ayaan wada galnay ballantiina madaxweynuhu wuu ka baxay. Cali Maxamed Caraale gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xilka qaadistii lagu sameeyay ka soo horjeestay ayaa wali gacanta ku haya aqalka maamulka gobolka looga arrimiyo waxaana soconaya dadaalo kala gidisan oo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ka soo jeeda ee beledweyne ku sugan ay wadaan ka oo ku aadan in la xaliyo khilaafkan ka dhashay xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee gobolka Cali Maxamed Caraale halka gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan isna qayb ka mid ah beledweyne uu ku sugan yahay. Maxamed Ibraahim Siyaad TV-ga caalamiga ah ee Kalsan beledweyne.